السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maantay oo bishu ay tahay 15 bisha sagaalaad 2000 muxuu ahaa 21 oo muxuu ahaa maalin arbaca waxaan ka hadlaynaa arrimaha baryahanba ka soo kordhayay gobolka Hiiraan khaas ahaan deefow iyo kabxanley khaasan deegaanka kabxanley runtii dadka halkaa dagaalka iyo diriirtu ay ku dhex marayso waa dad walaalo ah waa dad ehel ah waa dad seedi iyo abti iyo qaraabo iyo dhinac walba oo dad yahay ah weeyaan marka kulleyba dee salaadiin horena way ka hadashay oo waxaa hadlay suldaankii dhowel ayaa hadlay iyo ugaaskana way wada hadleen ugaas yuusuf xasan khaliif ugaas khaliif way wada hadleen marka sida aan maqlay marka annaguna kolley wax ka baxsan wixii ay madax dhaqameedku ay ku hadleen wax ka baxsan oo hadda aan ku hadlayo ma jiro balse waxaanu taageeraynaa ama aan taageerayaa wixii ay ku hadleen odayaashu ayaan taageerayaa dhowel iyo ugaas ay ka wada hadleen ayaan taageerayaa taas oo ah in haddaan mahayoy aad iyo aad looga fogaado wax kasta oo diriir keenaya oo muxuu ahaa wanaagga iyo wada dhalashada iyo ehelnimada la eego midda ugu muhiimsan la doonaya in la fuliyo ugu muhiimsanna waxa weeye dadkii ka barakacay guryahoodii iyo beerahoodii horta waa in marka hore lagu soo celiyo oo ay dadkaasi guryahoodii iyo beerahoodii shuruud la'aan ay ku soo noqdaan nin baa waxaa la yidhi ishana fallaadh kaga dhacday salkana fallaadh kaga dhacday markaasaa la yidhi tee lagaa siibaa horta aan fadhitee balta salka ah iga siiba buuri marka dee qofkii haddaanu fadhiyinba oo uu barakacay oo uu qaxooti yahay dee meeshaasi muxuu ahaa nabadima taalo marka dadkii guryahoodii ha ku soo noqdaan taas ayaa muhiim ah taa ayaanan muxuu ahaa annaguna aan mar walba aanu taageeraynaa bismillaah marka waxa loo baahan yahay waxa weeye dadkaasi inay shuruud la'aan ku soo noqdaan guryahooda taasi waa mid ta kale in la helo xal waara in la helo mar walba waxaan soo dhoweynaynaa nabadda waxay la tahay 2014 ayaa dagaal ugu dambeysay weyn oo dhaca khasaarihii dhacayna muxuu ahaa in hadda dib loogu noqdo oo mar kale muxuu ahaa dhibaatadii dib aan ugu noqonno sax ma aha dib loogu noqdo sax ma aha waa in laga fogaado wax walba oo keeni kara wixii dhacay sanadihii hore wixii dhacay inaan aad looga fogaado weeye sida isoo gaadhaysa aan maqlayo waxa weeye dad aan labada dhinac midna dantooda wadin oo dan gaar ah wata in ay muxuu ahaa soo galeen deegaanka ayaa maaragtay na soo gaadhay marka dadkaasi waa in dhinac looga soo wada jeedsado oo la iska saaro oo laga fogeeyo deegaanka sababtoo ah waa dad dana gaar ah wata sida la sheegayo dana ganacsi wata aan labada dhinac midna danin ay leeyihiin aan ka shaqaynaynin marka dadkaas ganacsatada lagu sheegayo hay-adaha lagu sheegayo aan dadka danihiisa wadin in muxuu ahaa cid kasta oo dhex gelaysa arrinkan ay lagu horreysiiyo in dadkaasi meesha ka baxaan sababtoo ah dadkani weligoodba meesha way wada deganaayeen ehel bay ahaayeen
seedi iyo abti bay isu ahaayeen ismana ayna diriri jirin marka wax baa jira arrin haddii la xallin waayo baa la yidhi wax aan meesha ku jirin baa la soo gelinayaa ama wax meesha ku jiraa laga saaraya marka arrinkaas waxay ila tahay in dib loogu noqdo oo si muxuu ahaa dhab ah oo muxuu ahaa dhalasho iyo wanaag iyo diin iyo dhaqanba loo galo oo muxuu ahaa arrinkaas nabad lagu soo dabaalo labada shuruudood ee aan ku khatimaya waxa weeye dadkaa danaha gaarka ah wata ee aan soo sheegay meesha inay ka baxaan iyo in dadka guryihiisii iyo dhulkiisii guryahoodii lagu soo celiyo shuruud la'aan kadibna uu hadalku furmo labadaa arrin ayaan muxuu ahaa ku soo gabagabeynayaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله magacaygu waxaa la yiraahdaa Cabdifataax Maxamed Axmed Cabdifataax Xaaji Buuxe waxaan ahay qurbo joogta ku nool dalkan iyo Norway kana soo jeeda deegaanka Kabxanley ku yaalo Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle ee Soomaaliya marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maantana waxaan halkan u soo fariistay inaan wax yar ku darsado ama laba kelmad ka yiraahdo xaaladda cakiran ama xaaladda colaadeed ee ka soo cusboonaatay deegaanka Kabxanley ee ku yaala Hirshabeelle marka hore waxaan rabay inaan ku bilaabo haddii aanu nahay qurbo joogta inaanu taageersanahay nabadda ay ku dhawaaqeen markii hore suldaanka ama guddoomiyaha golaha guurtada ee beelweynta direed suldaan cabdiraxmaan jaamac dawal isagoo de markaa jooga xafiiska golaha beelweynta direed ama golaha guurtada beelweynta direed xafiiska ku yaala magaalada Hargeysa ee Somaliland waxaanu taageeraynaa nabadda uu suldaan dawal uu soo jeediyey dadka Soomaaliyeed halka ku dagaalamayo waxaan taageeraynaa nabadda uu soo jeediyey ugaas xasan ugaas khaliif oo ah ugaaska xabaadle ee gobolka Hiiraan nabadda in fursad la siiyo de wax walba deegaanka ka dhacay waxaanu de marka hore rabaa inaan halkan dadkana qurbo joogta ah aan taageersanahay nabadda inaan hadalkayga ku bilaabo arrintan nabadda dad kale oo iyagana badan oo siyaasiyiin leh waxgarad leh ka soo jeeda ama xildhibaano ka soo jeeda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Kabxanley oo iyagana runtii u soo gudbiyey baaq nabadeed dadka Soomaaliyeed halka ku dagaalamayo inaguna nabadda ayaanu taageersanahay qodobka ugu horeeya aan rabo hadalkayga inaan ku bilaabo waa halka midda xigta qodobka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo ayaa ah deegaanada Kabxanley iyo Deefo runtii oo ah deegaano ku yaalo markii loo dhaqaaqo dhanka waqooyi bari markii laga soo dhaqaaqo magaalada Beledweyne waqooyi bari kaga yaala gobolka Hiiraan deegaanka Kabxanley wuxuu Beledweyne u jiraa ilaa 32 kilomitir ayuu u jiraa deegaanka Kabxanley iyo deegaanka Deefo waxay isku jiraan ilaa 8 kilomitir dadka halka ku dhaqanay beeraleyda ah beerahooda waxa ay soo gaaraan dadka reer Kabxanley beerahooda waxay soo gaaraan ilaa dhanka iyo deegaan la yiraahdo Bacaad oo isna markii Kabxanley laga soo baxo loo soo dhaqaaqa dhanka Beledweyne 8 kilomitir u jira marka waxaan ula jeedaa isku soo duuduub waa Kabxanley oo 31 ilaa 32 kilomitir u jirta Beledweyne markii Deefo lagu darana waa ilaa almost 39-40 kilomitir ayay Beledweyne u jirtaa marka dadka waa halka uu Ilaahay ku unkay markii gobolka Hiiraan dhanka waqooyi loo dhaqaaqo saddex meelood oo meel bay degan yihiin waa de halka beerahoodii iyo deegaankoodii uu ku yaalo weligoodna halka bay deganaayeen waa dad nabadda jecel weligoodna deegaano kale aanan ku duulin balse sanadihii ugu dambeeyey ku waayay inay si nabadgelyaha ugu noolaadaan deegaanadooda marka qodobkaana wuxuu ahaa qodobka deegaanka ku saabsan waxaan rabay inaan u dhaqaaqo qodobka xiga oo ah nabaddan runtii ay dadka
salaad marka qodobka muhiimka ah nabadda iyo warbixinta deegaanka haddii aan ka gudbo waxaan rabay arrin kale oo iyadana muhiim ah oo mudan in la xuso oo ah caqabadaha deegaanka ka jira oo runtii markii horanadii sababay in muddo ahba nabad waarta in deegaankii laga helo caqabadahana weli inay taagan yihiin ayna runtii noqon karaan caqabado kulley culayskeena kuna keeni kara dadka leh salaadiinta dadka leh ugaasyada nabadda saaxiibka u ah ku dhaqaaqay inay dadka iyo deegaankaaba u gurmadaan marka caqabadaha waan rabay inaan wax ka taabto aan u gudbayaa waa qodobkan hadda xiga kow runtii deegaanada waxaa ka jira koox danaystayaal ah oo leh dee ganacsato oo leh dad maxaan idhaahdaa ah hoggaanka hay-adaha samafalka ee halkaa jooga oo ku xiran dowladda ama maamulka halkaa ka jira ciidanka qaranka ee halkaa jooga gacan saar la leh oo shacabkii gobolka wax ay cabsi geliyeen oo haddii ay hor istaagaan ay tala iyo tusaaleynba u tusinayaan waxyaabihii ka dhacay kabxanle iyo deefo sidaa mid lamid ah inay la kulmi doonaan iyo waxay cunaha hayaano oo sida hadda reer kabxanle iyo deefo haddii yidhaahdiinna war cunaha inoo daaya ama qaaq ay yidhaahdiin oo iska fujiyaanna dee loogu jawaabaya de in deegaanadii iyo dadkii iyo dalagii iyo dunyadiiba cagti la mariyo kooxda oo sidaan hore usoo sheegay danaystayaal ah qabiilina ah marka caqabadda ugu horeysa oo runtii deegaanka ka jirta oo ayna la kulmi karaan dee cid walba oo u dhaqaaqda nabadda in la nabadeeyo deegaanada oo ay la kulmi doonaan dee waa dadka oo adress toos aanan lahayn dowlad ma aha laakiin waa awood jirto dowladda awooddeeda u dhiganta ama mararka qaarkood xataa ka awood badan marka dee sidii caqabadda looga gudbi lahaa ama ay uga gudbi lahaayeen dadka dee hadda salaadiinta ugaasyada ee u dhaqaaqay arrinta nabadeynta ah kulley waa arrin meesha ku jirto u baahan in listuso kow labo waxaa jira dee xadgudubyo dhanka xuquuqul insaanka ah oo aanan loo aabayeelayn maatada birmageydyada shacabka ku dhaqan halka dalaga iyo dunyada intaba la baabi'in waa xadgudub dhaqankeenna iyo diinteennana runtii ka fog waxyaabaha aanu ku aragnay gobolka hiiraan amaan iraadaba hirshabeelle oo runtii ayadana de marka laga eegaya dhanka dhaqanka ah arrin maxaan iraadaa culayskeeda leh loona baahan yahay in wax laga bedelo dee dadku waa dagaalamaa waa lisriixaa laakiin in lagu xadgudbo dadka maatada ah in lagu xadgudbo degaankii dalagii la jaro duunyadii la burburiyo dee waxyaabaha waa waxyaabo inagu cusub markii laga hadlayo dhaqankeenna soomaaliyeed iyo diinteenna islaamka ee suuban intaba arrintaana waa arrin kale oo culayskeeda leh oo runtiina loo baahan yahay in maxaan idhaahdaa sidii looga gudbi lahaa in la helo saddex waa qabiilii qabyaalad oo dadka danaystayaasha ah oo dee markii la hor istaago tolaayay odhanaya dee duufaan dadkii ku soo kicinaya haddee waxaanu ognahay dee adigu markaad duufaanta kiciso ogow un duufaanta meeshii aad ku kiciso waxaa laga yaabaa adigu laftaada inaadan ku badbaadin beritoole dee haddii xagga laga soo bilaabo tolaayay la yidhaahdo duufaan lasoo kiciyo oo magaalooyin dhan cagta la mariyo dee waxaa laga yaabaa beritoole inay duufaanta dhinac kale ka timaado aysan dadkii kii bilaabay marka hore iyo kii dadkii o dhan lagu baaba'o marka arrintaana dhanka qabyaaladda ah iyo tolaayaydan iyo duufaantan laisku soo kicinayo magaalooyinkan jiro cagta la marinayo iyada lafteeda waa arrin markaa dee culayskeeda leh loona baahan yahay in laga gudbo midda afraad oo aan rabo inaan ku daro markii aan ka hadlayo caqabadaha halkaa ka jira ayaa ah ciidamada halkaa jooga ee leh dee ciidamo amisom oo nabadda loo geeyay halkaa inay sugaan iyo ciidamo qaranka soomaaliyeed ee ka jira gobolka hirshabeelle caqabadda dhanka ciidamada ee halkaa ka taagan gobolka hirshabeelle ka taagan waxa weeye dadka halkaa ku dagaalamaya markii laga hadlayo dhanka iyo beledweyne iyo bariga beledweyne
ma ogola in ciidamada amisom gaar ahaan walaalaha Jabuuti halkaa jooga in ay soo kala dhex galaan colaadda halkaa ka taagan ma ogola dadkii baa bannaan baxayo shacabkii baa lagu kicinayaa ciidan halkaa u tagay inay nabadii dadka halkaa ku nool ay sugaan ayaa dee waxaysan u qalmin ayaa markaa dee iyo aflagaada loo geysanayaa iyo hanjabaad intaba dhanka kale marka laga hadlayo dhankan Kabxanley iyo Defo iyagana runtii ma aaminsana ciidankan qarankee la leeyahay oo haddaba la keenay Kabxanley waxay u arkaan dadka Kabxanley iyo Defo ku dhaqan ciidanka qaranka la leeyahay in ay yihiin un dadkii markii horena deegaanada burburiyay tiknikadii dawladda iyo hantidii iyo hubkii qaranka ku garaacay deegaanada dadka ku barakiciyay oo shaarkii soo bedeshay un inay yihiin ayay u arkaan oo iyagana ma aaminsano in ciidanka qaranka wax sugi karo marka taa lafteeda waa caqabad kale oo halka ka jirto yaa la kala dhex dhigayaa dadka dhinacna ma ogola ciidanka amisom ee marka halka jooga dhanka kalena ma ogola ciidankan qaranka ee hadda Kabxanley la geeyay taa lafteeda sidee looga gudbi karaa loo heli karaa ciidan labada dhinac bay aaminsan yihiin oo walibana dal la geeyay halka duulaanku ka socdo ilaan muhiim ma aha in ciidan la qaado Kabxanley magaaladii la dhex geeyo waxa muhiim ah ciidanka in la dhigo meesha duulaanku ka imanayo maxay raada dhanka iyo beledweyne duulaanka intiisa badan uu ka imanayo waa halka baa loo baahan yahay in lagu xakameeyo duulaanka iyo gardada halka ka socdo marka arinta lafteeda waa caqabad kale oo runtii taagan oo loo baahan yahay in la helo sidii looga gudbi lahaa marka gabagabadii iyo ugu dambeyntii waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa nabadda ay ku dhawaaqeen Suldaan Dhawal oo ah gudoomiyaha golaha guurtada ee Beelweynta Direed iyo Ugaas Xasan Ugaas Khaliif waanu taageersanahay haddii salaadiinta iyo ugaasyada ay ka gudbi waayaan caqabadahan aanu soo sheegnay oo gobolka horena uga sii jiray haddana weli raadkooda uu muuqdo haddii ay ka gudbi waayaan deegaanada Kabxanley iyo Defo dagaallo ilaa dhowr iyo 25 ilaa 30 ku dhawaada ayaa lagu soo qaaday afar ka mid ah waxa lagu gubay deegaanada Kabxanley iyo Defo inta kalena dadka halka deegaanaa ama deegaanka ka soo jeeda deegaanadooda way difaacdeen dib bayna ugu soo noqdeen marka haddii aanu nahay shacabka ka soo jeeda deegaanada Kabxanley iyo Defo waxaanu diyaar u nahay inaanu nabadda jaanis siino waxaanu diyaar u nahay inaanu la shaqeyno dadka salaadiinta leh ugaasyada leh ee nabadda ehelka u ah in allaale intii la doono balse haddii laga gudbi waayo caqabadaha aanu hore u soo sheegnay deegaanka ka jira dadka reer Kabxanley guryahoodii iyo beerahoodii way ku soo noqonayaan nabad haddii si nabad ah la helana nabad bay ku soo noqonayaan haddii nabadda la waado awood loo sheegto xabad looga saarayna dee awood bay ku soo noqonayaan insha Allah hadalkayga intaa baan ku soo gabagabeynayaa wabillahi tawfiiq